asalaamu calaykum maqaayarta meel joogtiin oo markale maqal cusub ku eegdan wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo akhbaaradada xilliga la diiwaangelinayo Newcastle oo markaa soo qaadatay laacib ka tirsan kooxda Aston Villa xilli Real Madrid markaan doonayaan Adam Weghorst Crystal Palace Liverpool oo heshiis waqti dheer ka siixatay Giovanni Leoni iyo goorta oo ku soo biiray oo la shaaciyay City oo heshiis la gaartay Donnarumma Manchester United oo dalabkii labaad markaan ka gudbinaysa Carlos Baleba xilli Tottenham markaan ay indhaha ku sii hayaan sheekada xidiga lagu magacaabo Isa iyo macalinka Tottenham oo ka hadlay Newcastle oo markaan ku sii dhawaanaysa ninka lagu magacaabo Jackson iyo akhbaaradii kale suuqa ayaan eegayna haddii aad muuqaalka hesho like garay kanaalkana subscribe nasar haddii aan ku bilowno akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga warar dhowr ayaa la diiwaangelinaya xaalad hore maqaalkii ugu dambeeyay la wadaagay oo ahaa sheekada Donnarumma haatan waxyaabo kale ayaa ka soo kordhay wakiilkiisii oo hadlay oo waxyaabo badan shaaciyay in xitaa oo lama filaanku ee baaqi Saint-Germain go'aanka ay qaateen oo in Donnarumma la diro waliba wuxuu taagan si bahdilah ay noo direen haatan maxaa la daabacaya markan xilligan majalada The Standard ee ka soo baxda England haatan waxay daabacaysaa in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee heshiis ay la gaareen laacibka lagu magacaabo Donnarumma iyagoo Manchester United ku garaaca Manchester sheekada way iskaga baxeen oo gacanta ay ka tagteen Chelsea sidoo kaleeto haatan marka majalada The Standard iyadoo soo qaadanaysa majalada kale ee Faransiiska ee L'Equipe la yiraahdo waxay leedahay Donnarumma iyo kooxda Man City wadahadal ayaa dhex maray oo heshiis ay gaareen wakiilka ayaana sheekada haatan gabagabay maadaama baaqi Saint-Germain ay cadeeyeen laacibkan inuu baxayo si wacan ay ula dhaqmin sidoo wakiilkiisa uu sheegaba marka Donnarumma ugu dambeyn dhanka iyo Manchester City ayuu qabanaya waqtiyada soo aadana heshiiskiisa iyo waxyaabaha kale ayaa markaa la shaaci doona marka Donnarumma lacag gaaraya 25 milyan ilaa 30 milyan inta u dhaxaysa ay baaqi Saint-Germain ku rabaan marka wiilka xulka Talyaaniga ninkii ku guuleystay Champions League baaqi Saint-Germain xil ciyaareedka hore ka caawiyay ugu dambeyn qalcada Bagdifars wuu farijiyay oo markaa ninkii waa la macsalaameeyay marka sheekadu waxay ahayd sheeka hal mar bug soo tiriba marka goolahayaha la yiraahdo Lucas Aljarva markii Lille laga soo qaadiyay ayaba sheekada muuqatay mid soo socota marka Donnarumma oo ruuxu isdhaayay meesha iska sii joog laakiinse Enrique ayaa yiri xitee go'aanka aniga ayaa gaaray oo Donnarumma kooxda uga baxayo marka sheekada halka ayaa maraysa Donnarumma kooxda kubadda cagta Manchester City ayuu markaan heshiis la gaaray halka ay iteed ayuu ku wajahay maadaama kooxda kubadda cagta Man City ay haatan iska dariyaan goolahayooda Anderson kaasoo dhanka iyo Turkiga kooxda ka dhisan Galatasaray u socda marka bedelkiisa markaan waxaa la soo qaadayaa ninka rugo cadaaga ah ninka lagu magacaabo Donnarumma marka Donnarumma haatan wuxuu ku soo wajahayaa qalcada caanka ah ee Etihad Stadium dhinaca kale tan wararka haatan jira qayb waxa ka noqonaya sheekada laacibka lagu magacaabo Giovanni Leoni haatan waa laacib kooxda kubadda cagta Parma laakiinse haatan heshiis ayuu la gaaray kooxda kubadda cagta Liverpool Parma iyo Liverpool labada kooxood sheekada way gabagabeeyeen oo markaan heshiis ayaa la gaaray kooxda waxay dhaheen diyaar waay in laacibkan qaadatiin yes ayay dhaheen laacibkana mar hore ayuu oo confirm gareeyay inuu Liverpool qabanayo haatan marka waxaa soo baxaya in heshiis gaaray ilaa 2031 oo qalinka ugu duugay kooxda kubadda cagta Liverpool laacibka lagu magacaabo Giovanni Leoni ayaana sii joogi doona Talyaaniga marka ayuu sii joogi doonaa kooxdiisa Parma wada xaajoodada sida ay markaan ku sii soconayaano ninkan amaah ayuu ku sii joogi doonaa dhanka ay kooxda kubadda cagta Parma wuxuuna ku soo biiri doonaa xil ciyaareedka dambeeto 2026-27 marka xil ciyaareedka isku diyaarinayo ayuu Giovanni Leoni imaanaya garoonka Anfield laakiin haatan ma imaanayo heshiiskaasna sida ayuu ku dhacay laacibkana markaan heshiis gaaray ilaa 2031 ayuu qalinka ugu duugay kooxda kubadda cagta ee Liverpool marka wax dhibaato hada sheekada kama jiraan xaalatan waa idin la wadaagay laacibka lagu magacaabo Giovanni Leoni in wax walba oo ku saabsan sheekadiisa la gabagabeeyay ninkaana Liverpool uu yahay marka sheekadu waa halkeedii kaliya waxa soo koray laacibkan in amaah uu ku sii joogi doono kooxdiisa kubadda cagta Parma sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool markaan sidoo kale waxay gabagabeyn rabaan ninka lagu magacaabo Maguire waa difaac haatan ku soo wajahaya Anfield Liverpool lacago haatan 30 milyan ku dhow dalab ah ay si rasmi ah ugu dariyaan kooxda kubadda cagta Crystal Palace walow Crystal Palace dalabkaasi diyaar u yihiin rabaan lacago 40 ilaa 45 milyan inta u dhaxaysa marka Liverpool Maguire wada xajood fiican ay kula jiraan asiga heshiiska shaqsiga way la gaareen sheekaduna markan waa iska gabagabo marka waan arki doonaa sheekada Maguire waxa ka soo kordha dhinaca kale isla umuraha Crystal Palace qayb waxa ka noqonaya kooxda kubadda cagta Real Madrid si weyn markan waxay u doonayaan waliba dagaal ugu jiraan ninka lagu magacaabo Adam Weghorst oo qalbada dhex ugu ciyaara Crystal Palace iyo xulka England laacib kale oo Ingiriis ayaa Real Madrid markan ku soo wajahan Bellingham ayaa hor u yimid season-kana waxaa yimid ninka lagu magacaabo Arnold haatan Adam Weghorst ayaa soo socda majalada Sky Sport haatan waxay leedahay Real Madrid Liverpool Arsenal iyo Manchester dhammaantood adiga waxay isku hayaan ninka lagu magacaabo Adam Weghorst Real Madrid ayaana haatan sii wada ayaa la leeyahay
inay soo xirigeliyaan wiilka qalbada dhex ugu ciyaaro kooxda Crystal Palace Adam Ward kaasoo Liverpool, Man City iyo Arsenal ay kula dagaalamayaan marka nimanka ka dhisan qalcadda Santiago Bernabeu markaan si weyn waxay u qudareynayaan ninka lagu magacaabo Adam Ward kaas oo u arkaan mid ku haboon qalcadda Santiago Bernabeu marka macallin Xavi Alonso wuxuu rabaa xiddi qalbada dhex ka ciyaaro inuu kooxdiisa ku soo diro markaana wuxuu rabaa ninka lagu magacaabo Adam Ward inuu soo qaado marka Adam Ward Real Madrid markaan diyaar ay u yihiin inay soo xirigeliyaan marka City iyo Liverpool iyo Arsenal iyo United iyo raggi kale iyaguna markaan sheekada qayb ay ka yihiin Real Madridna ninkan si weyn ay markaan u daneynayaan dhinaca kale tuna wararka xilliga la diiwaan gelinayo qayb waxa ka noqonaya sheekada Carlos Baleba waa la wada socotiin sheekadiisa halkee mareyso laacibka Manchester United ayuu ku soo biiraya wax walba oo dhanka iyo Manchester iyo asiga qusayeen oo wal gabagaboobeen oo heshiiska shakhsiga mar hore ayuu la gaaray dalab ay Manchester direen waa laga soo diiday oo waxa la yiri laguma filna haatan dalab kale ay Manchester United diyaarinayaan laacibkana markan wuxuu noqonayaa laacibkii ugu horeeyay Afrikaana oo lacaga waaweyn marka lagu kala iibsado marka laacibka Camerooniska markan qalcadda caanka ee Old Trafford ayuu markan ku soo wajahaya Carlos Baleba oo ku badjoojiyay waa nin qalbada dhex ka ciyaara booska Casemiro ay Manchester United ninkan u rabaan marka Carlos Baleba hadda Manchester soo qaadaan second difaac ay u jeesanayaan xitaa difaacyo dhowr ay Manchester hata la xiriirinaya oo Obi Makaro uu qayb ka yahay oo Bayern Munich ka tirsan marka kooxda kubadda cagta Manchester United macalinka hogaamiye macallin Amorim haatan suuqa wuxuu ku doonayaa Carlos Baleba waa targetkiisa koowaad marka nin kale to hata target weyn noqonaya ma jiro marka ninka laga soo jeesto difaac ayaa loo dhaqaaqaya waana difaaca Obi Makano ama difaac kaleeto Maguire ay habeen horeeto sheekadiisa soo galay xalamahan habeen horta soo galeen Liverpool hurdada ay ka soo tooseen waxay dheen sheekada kuma jirno wiilkeen anaga ayaa qaadanayna marka sheekada Manchester United halka ay maraysaaba dhinaca kaleeto umuraha haatan laga diiwaan gelinayo Tottenham iyo Arsenal ninka lagu magacaabay Iza heshiiska shakhsiga waa la gaarin xitaa Crystal Palace lacag 5 milyan ay kula heshiiyeen marka sheekada halkaas iyadoo Arsenal u marayso waxa soo gashay Tottenham oo ninkan dardar gelinaysa inay helaan maadaama James Maddison oo ka dhaawacmay sheekadu halka ayay taagneed Charlotte iyo maalinta ka horeysa haatan maxaa soo kordha marka kooxda kubadda cagta Tottenham maadaama caawa kulan ay la leeyihiin kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain kulan ka tirsan UEFA Super Cup-ka finalkiisa marka macna kale yiraahdo Thomas Frank ayaa ka la amuuraha isagoo yiri haatan waxa diiradda saareena kulanka aan caawa la leeyna Paris Saint-Germain kadib ayaan arkeena sheekada laacibka lagu magacaabo Iza marka taa waxay la micno tahay Tottenham diyaar ay u tahay in dalab weyn ay ka gudbiyaan Iza maadaama laacibkan uu buuxinayo booska ninka lagu magacaabo James Maddison laacibka waa kubad abuure waa nin laacib lambarka 10aad ka ciyaara sida daraadeed Arsenal ninkan way ku dareynayaan oo si weyn ay u doonayaan waana kooxda koowaad ee laacibkan uu doonaysa xitaa heshiiska shakhsiga la gaartay isaguna Arsenal ayuu doonaya laakiin Tottenham ayaa rabta sheekada inay dhexda u gasho Arsenal iyo Izana kala disho markaana laacibkan ay soo qaadaan Crystal Palace lacaga badan ay laacibka ku doonayaan 68 milyan halka Arsenal 50 milyan ee meelaha la wareegayso marka kooxda Tottenham ninkan ay rabaan inay soo qaadaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Newcastle markan waxay heshiis la gaareen kooxda kubadda cagta Aston Villa waxayna ka soo qaadeen laacib lagu magacaabo Jacob Ramsey ay soo qaadeen 40 milyan ay shakadiisa ku gabagabayeen xidigana markan garoonka caanka ah ee SD James Park ayuu markan ku soo biiraya oo dhanka Villa Park uu ka soo dhaqaaqaya sidoo kale kooxda kubadda cagta Newcastle mar walba waxay rabaan number 9 inay soo qaadaan number 9 maadaama ay doonayaan xidiga badan ayaa lagu garaacay oo Benjamin Sesko ugu dambeeyay haatan Dusan Vlahovic oo Juventus ay u soo bandhigtay sheekadiisa kama aysan jawaabin laakiin Nicholas Jackson oo kooxda Chelsea ay markan ku dareynayaan xidigan ay markaa rabaan inay soo qaadaan marka kooxda kubadda cagta Chelsea iyadoo diyaar ay u tahay Jackson inay iibiyaan Newcastle United waxa la leeyahay mar walba marka waxay ku sii dhawaanayaan helitaanka ninka lagu magacaabo Jackson marka wararka haatan la diiwaan gelinayo sida ay sheegaan in kooxda kubadda cagta Newcastle ay doonayaan Jackson inay soo qaadaan Jackson ruuxaantiisa wuxuu rabaa ku biiritaanka kooxda kubadda cagta ee Newcastle United haddii uu ka dhaqaaqayo qalcadda caanka ah ee Stamford Bridge taa waxay la micno tahay marka in Jackson ready u yahay inuu Newcastle u dhaqaaqo Newcastle ay rabaan Jackson inay soo qaadaan walow kooxda Newcastle rag kale tan ay fiirinayaan oo Alexander Isak bedel fiican u noqon kara maadaama Alexander Isak 25 gool xil ciyaareedkiiba uu ku dhalinayo iyo ka badan Premier League-na Golden Boot-kiisa u tartamayo Jackson inta laga meelayo marka nin kale to macquul gal ay wali raadinayaan laakiin Jackson option kale to ayuu noqon karaa marka aan arki doonaa wixii ka soo korna adiga muuqaalka channel garay kanalka subscribe noo sar goodbye